السلام عليكم داودة وبرنامج كيني موقتها داودة وأمانت كسو جيدين دونا 8 شيء oo kugu cusub dhanka caafimaadka iyo bulshada dhameystira muuqaalka oo like saar hadaad ka heshid aan bilaabo muuqaalka موقتها داودة cunista tufaaxa waxay hoos u dhigtaa miisaankaaga haddii uu badan yahay kamana marno inuu kor u qaado caafimaadkaaga waxaana jirta xigmad ah xabad tufaax oo aad ku quraacato waxay kaa dheeraysaa dhakhtar inaad tagtid موقتها داودة cabirka dhirirkaagu inuu la mid yahay dhirirka gacmahaaga markii la kala fidiyo iyadoo la fiirinayo cabirka u dhaxeeya labada fardhaxo ee gacmahaaga موقتها داودة hilibka looda salbukada iyo shukulaatada madow inay yareeyaan biyo-bax degdeg ah oo in badan ay ka cabtaan dadka qaar isticmaal kuwan iyo cuntooyinka kale ee nafaqada leh موقتها داودة looska iyo timirta inay ka qayb qaataan koridda naasaha dumarka maxaa yeelay cuntooyinkan waxa ku jira estrogen iyo vitamins oo waxtar u leh weynaanta iyo korinshaha naasaha موقتها داودة samaynta iyo joogtaynta siigaysiga inuu ku keenayo xiriir xumo qorshe la'aan iyo saagsagnimo waxbarashada ah iska jooji haddii ay caadadan leedahay uma fiicna caafimaadkaaga iyo noloshaada موقتها داودة in basbaaska guduudan uu hoos u dhigo kolestaroolka ama dufanka jirka waxa uuna yareynayaa sidoo kale xanuunada wadnaha iyo stroke inuu kugu dhaco sidoo kale basbaasku waxa uu fududeeyaa in la dheefshiido cuntada aad cuntay balse haddii aad gaas qabto ha u dhowaan موقتها داودة afakaadhada shukulaatada iyo mooska inay u fiican yihiin maqalka haddii aad leedahay dhibaato dhagaha ah fadlan cunooyinkan badso waa ku soo kabsanaysaa insha Allah iskana daa waxyaabaha sababa in maqalkaagu yaraado موقتها داودة in kaniiniga tramadol uu leeyahay dhibaatooyin caafimaad haddii aad badsato ama qabatinto sida niyad jab dhaawac maskaxda kaa soo gaara walwal iyo marinka hawada oo xumaada muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku ogyahay daawade haddii fikir aad ii reebayso fadlan commentiska iigu qor hana iloobi inaad sii gudbiso muuqaalka like na saartay haddaad ka heshay mahadsanid waa inoo muuqaalka xiga